soomaalida waxay ku amaadan nin baceesaantiisa ceel geysaa soo sidaa maaha nin walba ceesaantiisa yaa ceelka geysaa hadday siiga soo dhaqaaqdo dabeel soo dhaqaaqdana ninka kale isha uma qabto nin walba indhihiisa buu sacabaha saaran oo qashinka iyo siigada duulaysa oo ka reeban xaqiiqatan hawshan hadda maanta aan isugu nimid waa hawl waajib ah oo annagoo dhan noo taallo ma aha taageero axmed ma aha taageero shakhsiyeed ma aha taageero qofeed waa naftaada oo taageerayso ood ku taageerayso inaad waxa kaa maqan aad gaadho jubbaland haddii la yidhaahdo gobolladii ugu muhiimsanaa yaa maqan gobolladaa ugu muhiimsan in la laybareed gareeyo la xoreeyo la gaaro shacabka ay u tagaan ka soo tagaan dantooda ka fushadaan ku noolaadaan dhinkeen rabin war intaasoo diyaar uma nihin waxaan qabaa maanta 9kii dabe cawliyahan inuu meesha ku dhan yahay cid dhaqan oo cawliyahana inaynan maanta jirin shakhsi hebel la yidhaahdo waa gaarki cawliyahan xalay ilaa iyo habeen hore waan wada hadlaynay waxaan qaadannay in naf iyo maal aan u hurro dawladdeenna iyo deegaanadeennaba in aan la garab istaagno oo dawladda annagaa iskale ilaahay baa na siiyey mahad iyo shukri ilaahay baa iskale mahadda labaadna waxaa iskale madaxweyne axmed maxamed islaam axmed madoobe oo lagu hogaamiyo howlgalka jubbaland ka socdo oo lagu xoreynay deegaamaha aan isin u leenahay taageero buuxda baan siinaynaa midda labaad waxaad ogaataan dawlad haddaad maqashiin waa dhul dawlad dad ma aha dawlad haddaad maqashiin waa dhul maxaa soo dawlad aanan dhul haysanin dad ma haysan karto marka madaxweynaha aad baan ugu mahad celinayaa dadaal iyo juhdi dheeraad ayuu samaynhayaa markaan waxaan leenahay madaxweynaha iyo ciidamada howlgalka samaynayaan yaanan lugaha qabanin waa inaan taageero buuxdo siino waa inaan garab istaagnaa waa dhulkan naga maqan inaan soo ceshana يعني waxaan soo kacnay annaga maanta muxubbada aan u qabno Jubbaland madaxweynaha Ahmed Maxamed Islaam inaan aragno waan u diyaar baan u ahaan ilaahayna wuuna tusay waxaan ka rajaynaynaa meesha uu u socday inuu maxay ilaahay ku guuleeyo annagana aan ku taageersanahay joog dheer jarnaalkii magaalo 80 magaalo inankii saxiixiyo sariirta wareegsan inankii ku seexiyo jalaala liba ala jiirkaaga cadow ma jara janna fardowsi alla wajidka nabi ku gee aamiin arrintan aad baan loo taageeray aad baan kugu garab taaganahay aad baan xiiso ugu qabnaa waana ku mahadsantahay inaad noo bilowdo waana kula garab taaganahay jubbada dhexe waa la qaban ilaahay idinkiisa waa la qabanaya anigu baan ka geliyaa 3 iyo B laga geliyo tuutaha madaxweynuhu qabaan qaadan doona haddii alla yidhaahdo wasiirkeennada iyo raggana waa isdaba gelaynaa af mehe baraatika loo degaya quusar dheerana waa wataa 5 qasnadood ku jirto cawiyaan siyaasiyiintiisii cuqaashiisii waxay ka yimaadeen meesha la yidhaahdo Kenya Soomaaliya iyo meel walba ka yimaadeen Nairobi waxa la isugu yimid Kismaayo si sharaf loo soo dhaweeyay qodobo laga wada hadlay oo muhiim ah jiray qodobadii ugu muhiimsanaa waa la fuliyay laakiin waxaanu garanaynaa shakhsiyaad ka mid ah oo marka horeba eedaynta ay soo jeedinayaan ay ahayd gobolkii lama qaban hayo maamulkii gobolka maxaa loo magacaabi lahayaa inaysan dhabka ahayn waan ogeyn markii intii lagu ballamay la sameeyay ayay faryarid bixi ka baxeen oo haddana bilaabeen eedayn kale iyo dacayado kale ujeedkoodu marka maysan ahayn caawiyaan dhulkii hala qabto ujeedkiidu wuxuu ahaa dana gaara caawiyaan ma ogolaanaysaa in dan gaara wata inuu waxaan qabaa maamulkeenna madaxweynaheenna inaan garab istaagno ku garab istaagno howlgalka iyo in la xoreeyo deegaanada naga maqan mudana madaxweyne ku soo dhawow halkaan hadda waxaan u nimid socodkayga laba xaal u ahaa waxaa koo ahayd inaan samayno abaabul howlgal oo aan doonaynay inaanu ku bilowno
furimo cusub oo dagaal oo lagu xoreynayo caasimaddii iyo gobolka jubbada dhexe inta ka maqan iyo xagar oo jubbada hoose ka mida ilaa iyo jamaame iyo degmada badhaadho degmo ahaan u maqan laakiin tuulooyinkeeda inta badan ay joogaan howlgalkaas waxaan inagu qaadanay hal waddo oo keliya dagaal laga qaadaay inayna keeni karaynin in guusha la doonayo si dhaqsaha loo gaadho taas waxay sababtay inaan furno oo aan u soo doorannay dhobleyda maanta aan joogno waa tii jubbaland laga qabtay bilowga halganka ahayd in dariiqa labaadee haddana laga furayo noqonayo afmadow in laga baxo ilaa la tago gobolka intiisii kale oo jilib iyo bu-aale iyo salagle iyo saakow intaba halkan laga aadaya haddii laga yidhaah howlgalkaasi waa midka aan odayaashana ugu yeedhnay dadkan aan kula kulmaynay oo aan u baahan nahay inaan wiilkii iyo warankii iyo wixii diyaargarow ahaa iyo isku tashigii intaba inaan samayno waxayna tahay aan u diyaargarowna aad baan idinkaga mahad celinaya si aad ugu diyaarsan tihiin isku duubnidiina iyo muwaafaqadiina qof wax sheega lama waayo colayskana saaran maanta cid maanta noogu hiilinaysaa ma jirto shabaab maanta cid walba iska waa la fiirinayaa dagaalkooda sidan u socdaa kanuu yahay inaan isku tashanno ma dhib bayna uleeda ma wiil baan maanta waayaynaa waxaan qabanaynaa ha noqoto halgankaas wuxuu yihi ninkii xoolodooni xamarahaada ninkii xoolodooni meel xamaro la yidhahdo mala waxba loo doonay waad ninkii xoolodooni oo bu-aalaad ninkii xoolodooni oo bu-aalaad ninkii xil dooniyo bu-aalaad meeshaasa xilku yaala marka aad baan khayr idinku rajeynaya insha allahu waxaan rajeynaya inaan hadallo badan oo dambana yeelan doono waan odayaasha ka yimid ilaa iyo gaarisa libeeya soonahan kulli waan idiin mahad celinaya gabdhahana weliba si gaara yaan ugu mahad celinayaa gabdhuhu ragga way ka fiican yihin wayna ka caadifay badan yihin marka gabdhaha iyaga si gaaraan aad iyo aad ugu mahad celinaya waanan jeclaan lahaa inaan iyaga weliba si gaara ula hadli doono haddii ilaha yidhaahdo aad baan idinku mahad celinaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu